halkan barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka xog xasaasi ah ayaan ku baahinayaa balse daawade haddii aad ugu cusub tahay nagu soo biir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran halkii ayuu ku dambeeyay darawalkii gaarka ahaa ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo darawalkii Farmaajo ee u baxsaday al-shabaab ayaa gacanta lagu dhigay xogta arintan oo la qariyay ayaan soo helnay oo aan ku baahinayaa codad sir ah iyo muuqaal laga duubay oo hadda ina soo gaaray ayad barnaamijkan ku daawan doontaan balse daawade waxaan ku xasuusinayaa in ay muhiim inoo tahay leegto haddii aad nagu cusubtaa nagu soo bir oo fadlan subscribe saar barta aad naga daawanaysa ee nuxurka wararka muuqaalkan sii sheer galay oo saaxiibada la wadaag Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya darawalkiisii gaarka ahaa oo lagu magacaabayay Sahal isla markaana ay ahaayeen ehel dhow ayaa la baahiyay kal hore in uu u goostay isla markaana u beeray dhanka dagaalamayaasha kooxda qawaariijta ee al-shabaab talaabadan ayaa waxa ay dhalisay tuun xoogan oo la xiriiray in Farmaajo iyo kooxdiisu ay gacan saar dhow la lahaayeen kooxaha qawaariijta al-shabaab arintan waxay noqotay mid si aad loo hadal hayo isla markaana aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyay walow dadka qaarkiis ay u muuqdeen kuwa markaasi la jiray oo taageerayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Sahal ayaa la baxsaday gaari qooqan proof ah oo uu lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli oo garoonka Aadan Cabdullaahi Cismaan Aadan Cadde geeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku wajahnaa magaalada Garowe ee maamulka Puntland inta kadib lama arag meel uu jaaniyo cirib dhigay haatan xog soo baxaysa ayaa tilmaamaysa in darawalkii Farmaajo uu si rasmi ah ugu goostay kooxda al-shabaab isla markaana gacanta lagu dhigay oo halka uu gaaray al-shabaab ayaa si buuxda gacanta ugu dhigtay darawalkii gaarka ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay baahiyeen ila xog ogaal ah taageerayaasha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kuwa ka difaaca baraha bulshada ayaa arintan u qiildayay iyaga oo tilmaamaya in markaasi baxsashada Sahal ay tahay mid la qorsheeyay isla markaana looga gol leeyahay in lagu wiiqo oo wax loogu dhimo sumcadda iyo sharafta madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa si aad ilaa iyo hadda loo hadal hayaa kiiskan waxaana sidoo kale dadka ka soo horjeeda siyaasaddiisa ay qabaan aragtiyo ah in Farmaajo uu wax uun ka og yahay baxsashada darawalkiisii gaarka ahaa kuwa kalena waxa ay qabaan in darawalkan baxsashadiisa ay tahay wax laga shaqeeyay isla markaana la doonayo in lagu sumcad iyo karaamad dilo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kolkaasi magaalada Muqdisho u yimid olole ka dhan ahaa meel marinta afarta cutub ee ugu horeysay ee dastuurka kuwa oo ay cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya codkan aan ku soo gudbinayo ayaa muujinaya xogta dhabta ah ee la xiriirta darawalka gaarka ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meesha uu ku dambeeyay halka uu jaaniyo cirib dhigay iyo xogihii ugu dambeeyay ee laga helay codkan waxa uu muujin doonaa isla markaana uu beenayn doonaa warar kol hore lagu baahiyay baraha bulshada kuwaas oo lagu cabiray xogo kala duwan oo markaasi iska malaawaal ah balse xaqiiqda iyo sidoo kale xogta dhabta ah ee jirta ayuu cadeyn doonaa codkan idinku soo wajahan daawadayaal balse marka uu ku soo gaaro la wadaag saaxiibada oo sii sheer galay waxa dhacayda nooca iyo beenta sida ayaa lagu bixiyay dhaqaale aad u tiro badan si markaasi loo weeraro madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horeyna marar baa loo sameeyay arinta nooca waxaa dusha laga saaray gabar la garanayo kooxaha markaa dilay ee magaceeda la yiraahdo Ikraan Tahliil oo markaa noqotay mashruuc si aad ah markaasi loogu faa'iiday qaar ka mid ah tiimka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xiriir la sameeyay ayaa ii xaqiijiyay in aysan doonaynin in arintaasi uga hadlaan dhanka warbaahinta ayagoo aan isawaynin waxay ii sheegeen in gaarigaasi la ribood gareeyay oo dowladda Soomaaliya loo sheegay in gaarigaasi uusan gacantooda ku jirin wixii ka yimaadana markaasi aysan shuqul ku lahayn waxa kale oo jira muuqaal aan ka sameeyay oo ahaa in ninkaasi la helay gaarigana caafimaad qabo xogahaas oo ka soo baxay ilo qoys u ah ninkaasi markii dambeetana la waayay cid xaqiijisa oo aan muuqaalkii markii ugu dambeeyay aan ku qasbanaaday inaan ka tuuro bogeyga YouTube haddaba su'aashu markuu waxay tahay ninkii maalshaab buu aaday xagee buu gaarigii la aaday xageese ku dambeeyay weeye waxa aan doonayo inaan qaybtan dambe idinku sheego
sahal wuxuu noqday in shirmaad yar oo kooban siista gaarigii madaxweynaha oo waliba ahaa gaarigii loogu soo adeegayay guriga uu degan yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa jid loogu soo adeegayay guriga xogtii hore ahayd gaari bullet proof oo qaali ah buu ninkaasu la maqan yahay waxba kama jiraan laakiin waxaa jid guriga uu madaxweynuhu degan yahay ama madaxweynihii hore uu degan yahay marka loogu soo adeego ayuu inta qaatay isla markaasna meel duur la geeyay ayaa gaariga waxa loo kala furfuray bool waxa la tusi doonaa muuqaalada gaariga ninka sahal ah kama uusan fakrinin arinta ka imaan doonta tilaabada uu qaaday mana uusan ka fiirinin dhibaatada kale oo ay keensan karto tilaabadan asagoo markaasi u qaaday laakiin wuxuu ka fiiriyay xoogaa yar oo shilmaan ah oo markaa uu siisanayo boolasha motorka iyo qaybaha kale ee gaarigaasi muuqaalkan arkaysaan waa gaarigii oo lagu furfuray meel duur ah waxaan arkaysaan waa nalalkii dambe ee gaariga ee bareegyada waxaan kale arkaysaanna waa nalalkii hore ee gaariga qaybtan dambe waa boodigii dambe alaabta la saari jiray gaariga oo markaa meel lagu tiiriyay markii wixii kale laga baxay qaybtan kalena waa bambarkii gaariga oo meel hore lagu tuuray meeshan waa meeshii lagu qalay gaarigii xaajada ahaa ee ka shaqeynayay gurigii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ninkii baabuurta u furfutay kabacdina iibsadena ee darawalka ahaana wuxuu dhinac kaga qayilaya magaalada muqdisho asagoo shilmaadkii ku raaxaysanaya ku qayilaya haddaba marka haddii ninkii sahal ahaa ee darawalka ahaa uu sidaa sameeyey madaxweynaha Soomaaliya maxamed farmaajo lagu been abuurtay suuqana la geliyay beena aad u tiro badan waa maxay talaabada maanta waajibka ku ah qoyska uu ninka ka dhashay waxaan isleeyahay ilaa 3 talaabeen la qaadaa waa muhiim laga maarmaan ah waa haddii ay jiraan dad mas'uulka oo qaraabo la ah ninkaasi oo waxa aan ka hadlay garan karaya marka ugu horeysa waxaan isleeyahay waa ninkan la soo qabto warbaahinta la hor keeno isla markaasna uu cadeeyo halka gaarigii lagu furtay dhaqaalihii uu ka qaatay dantii uu ka lahaa xogtaasi ninkaasi waa inuu si public ah umada u sheego ka bacdina warbaahinta loo sheego si markaasi loo beeneeyo arintii ahayd al-shabaab buu aaday darawalka farmaajo waa al-shabaab iyo xogaha siyaasiga noqon kara bari iyo bari dambaba qodobka labaad waa in qoyska ninkaanu ay bixiyaan dhaqaalihii gaarigaasi isla markaasna madaxweynaha gurigiisa loo geeyo xaajiyad dhalinyarada ama dadka jooga ee ka shaqeynaya marka loogu shaqeeyo laguna soo adeego maadaama uu sameeyay bob hantideed isaguusan lahayn maqaarama mujibkiina ka bixiya waa arinta maanta qoyska uu ninka ka dhashay la siman inay sameeyaan marka saddexaadna waa in ninkan magaalada laga masaafuriyaa oo la geeyaa meel amni ah oo ku noolaan karo bahdheer uu ka yimaaday baa lagu yiri bahdheer ninka loo celiyo waayo bari dambe ayaa imaan karta dad kale oo iska qabsan karaya isla markaasna ka dhex goobaya arrimo siyaasadeed taana waxaan isleeyahay waa arrimaha dardaaranka ah iyo xogta ku saabsan ninkaasi intay dib isaga soo laabanayno waxaan idinka tagay nabadino asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا مال والبعض قد دعوانيسان يسي والبا ومركا عدي مغليسان با حندوني مركا هوري إنان إرادو عيد مبارك لما أمد الصوماليات وحنين رجينا يا إنان نبض بش يبرواقو مركا عدكو عيدين مالين فرحة عيدة انت كدب حندوني يا إنان مقال كان أنا وغاحد له حقيبه وكدن بي ضروا الكيمة دحويني محمد عبد الله فرماجو يقاريكي سي أول ويساه afarlaatanki match waxaan halkan kusoo gudbiyay xog la xiriirta darawal magaciisa aan ku sheegay in sahal la yiraahdo oo markaasi ka tirsanaa darawalintii ka shaqeynayay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo in asaga iyo gaarigiiba markaa la yahay arintan waxa si weyn uga faa'iideystay siyaasiyiin dana qaas leh waxaana markiiba loo fasiray in darawalku ahaa al-shabaab iyo inuu markaasi aaday jilib iyo kismaayo iyo meelahaasi ayda markaasi lagu riixayo inuu markaasi al-shabaab u fakaday waxa dhacayda nooca iyo beenta sida ay lagu bixiyay dhaqaale aad u tiro badan si markaasi loo weeraro madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo horeyna mar baa loo sameeyay arinta nooca waxa dusha laga saaray gabar la garanayo kooxaha markaa dilay ee magaceeda la yiraahdo Ikraan Tahliil oo markaa noqotay mashruuc si aad ah markaasi loogu faa'iiday qaar ka mid ah tiimka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan xiriir la sameeyay ayaa ii xaqiijiyay in aysan doonaynin in arintaasi uga hadlaan dhanka warbaahinta ay baan isawaynin waxay ii sheegeen in gaarigaasi la ribood gareeyay oo dawladda Soomaaliya loo sheegay in gaarigaasi uusan gacantooda ku jirin wixii ka yimaadana markaasi aysan shuqul ku lahayn waxa kale oo jira muuqaal aan ka sameeyay oo ahaa in ninkaasi la helay gaarigana caafimaad qabo xogahaas oo ka soo baxay ilo qoys u ah ninkaasi markii dambeetana la waayay cid xaqiijisa oo aan muuqaalkii markii ugu dambeeyay ku qasbanaaday inaan ka tuuro bogeyga YouTube
haddaba su-aasha marka waxay tahay ninkii maalshaab buu aaday xaggee buu gaarigii la aaday xaggeese ku dambeeyey weeye waxa aan doonayo inaan balqaybtaan dambe idinkugu sheego sahal wuxuu noqday nin shirmaad yar oo kooban siista gaarigii madaxweynaha oo weliba ahaa gaarigii loogu soo adeegayay guriga uu degan yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa jid loogu soo adeegayay guriga xogtii hore ahayd gaari bullet proof oo qaali ah buu ninkaasu la maqan yahay waxba kama jiraan laakiin waxaa jid guriga uu madaxweynuhu degan yahay ama madaxweynihii hore uu degan yahay marka loogu soo adeego ayuu inta qaatay isla markaasna meel duura la geeyay ayaa gaariga waxa loo kala furfuray boolbool waxaa intuu doonaa muuqaalada gaariga ninka sahal ah kama uusan fakrinin arinta ka imaan doonta tilaabada uu qaaday mana uusan ka fiirinin dhibaatada kale oo ay keensan karto tilaabadan asagu markaasi uu qaaday laakiin wuxuu ka fiiriyay xoogaa yar oo shilmaan ah oo markaa uu siisanayo boolasha motorka iyo qaybaha kale ee gaarigaasi muuqaalkan arkaysaan waa gaarigii oo lagu furfuray meel duura waxaan arkaysaan waa nalalkii dambe ee gaariga ee bareegyada waxaan kale arkaysaanna waa nalalkii hore ee gaariga daawade halka aad naga daawanayso waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran like-tu waa inoo muhiim ah ilmaamin amaana Allah